baastoolad baa dhabarka laygaga dhuftay waxaa laygu dhuftay looto waxaasoo dhan waa wax meel yaalla oo bannaankaa yaalla oo maqal iyo muuqaalkoodaba wata maaha waxaan aan leeyahay meel baan ka keenay waxaa la doonayey xaqiiqatan markaan run idiin sheego arrintaasi shirqool inaan istifaaco oo aniga meeshaasi dhibaato iga soo gaadho oo dhibaato halkaa laygu geysta ayuu qorsho u ahaa laakiin aan waxaan istaagay inaanan wax tallaabaa qaadin iyadoonan wax tallaabaa qaadin ayaa haddana waxaa la isku dayey in aniga waxyeelo la ii geysto laftaa dhabarka ee ka bilaabanto qoorta ayay igaga dhacday baastooladu qoorta waxaa la ii geliyey bahal madow luqunta waxaa la igaga dhiftay looto dabaqa saddexaad ee aan deganahay ee burjo Omar quxuurtadii la igaga dhaadhiciyey salaanka ilaa iyo dhulka xuurta la igu hayay in la igaga dhaadhiciyo oo waliba si axmaqnimo leh anigoo labada gacmood ka xidhan yacni ujeedada laga lahaa in wax la yeelo kamarada waxa ka daawanayay oo kamarada ku jiray oo codka ku jira taliyaha hay'adda sirdoonka kamarada muuqaalka iyo telefoonka hadalka ilaa iyo intii qolka la geynayay ninkaasi telefoonkana kamaradana uu ku jiray codkana telefoonka ku jiray waa la daawadsiinaya howlgalku soo dhacay markhaatigeeday leeday kamaradii haysay bay leeday hadduu isleeyay kamaradaad haysataayo xafiiska aad ka qaadatay kamarada ka badan baa kuwa xafiiska ku xidhnaa waxa aan halkan ka sheegaya markaan halkii ka dhaadhacay ee uu quxuurtada igu dhaadhiciyey waxaa haddana la igeliyey gaadhigii anoo gacmaha ka xidhan gaadhiga markii la igeliyey haddana xuurtadii uu igu qabtay ee luqunta uu igaga qabtay ilaa iyo qolka intan gelayay ayaa haddana la igu hayay xuurtadaasi waxaad xisaabsaa xafiiska aan ku xidhnaa iyo xafiiska aan ka shaqaynayey waxaan ka wadaa wax kale maaha waxaad xisaabsaa xafiiska aan ka shaqaynayey ee suuqa ku dhex yaalla ilaa xafiiska laygu xidhayey ee qolka laygu soo xidhi doono wuxuu igu hayay inanka i hayay xuurta qoorta luquntaasi ilaa iyo margiga ilaa iyo dhabarkaa lafta ilaa intuu wax iga dhuftay waxaa la doonayey marka aniga dhabarka lagaga dhufto in lafta xangullada aananu paralyze noqdo shaqada lagu talagalay waxay ahayd inaanan anu meesha ka kicin oo tallaabada la qaadaya ahayd tallaabo isku day dil oo shakhsi ah oo weerar ah waxaana ay tahay cadaawad caadiya oo bareedha oo aan qarsiimo lahayn maxaa kuu caddaynaya waxaa kuu caddaynaya qodobada aniga laygu soo eedeeyey maxkamadda waxaa ku jira qodob ah in dil aniga laygu xukumo bal ilaahay baan kugu dhaariyey u fiirso qodobada maxkamadda laygu soo eedeeyey waxaa ku jira qodobo sheegaya siduu garyaqaan markii dacwadeeda loo soo wareejiyey ay CID-du ay u soo istaagto ay tiri qodobadan dilka tilmaamaya iyo ninkan journaliska ah ee aad leediin hala dilo sidee bay u dhici kartaayoo dee caddeeya dembi tilmaamaya ninkan dilkan qodobkan aad ku eedaynaysaa waa sababta sharcigu markii aan hortegay ee 45 maalmood aan hortaagnaa ee intaasoo maalmood la ii raadinayay dembi ee la ibaadhayey ee la weydiinayey ee su-aalaha la igu soo noqnoqonayay haddana wax allaalo wax tallaabo ah oo dembi aan ku yeesho aan maanta waaye maxkamaddii ay tiri maxamedow beri baa tahay xorriyaddaadiina waa laguu celiyey wax dembiyana waa laguu waayey maxamedoo halkaa ka baxa sidaan ku mutaystay markaa in jirdilka intaa laga geysto shaqaalahaygii loo geysto xafiiskayga 54 daqiiqo ayaa la ururinayay qalabkayga 54 daqiiqo ayaa kombiyuutarada xafiiska inta la qaado ilaa iyo gaariga la saarayo minuteskii iyo dhammaystiran baan haya xafiiska gudihiisa in qalabka laga urursado oo kombiyuutarada laga urursado ilaa iyo imikada aan idinla hadlay saacadda aan idinla hadlayo inamadii la xidhnaa kombiyuutaradii xafiiska hay'adda maanta aanu ku xidhnaa inankaasi maamulo ayay yaalaan ilaa haddada aan idinla hadlayo waa saacadda aan idinla hadlayo ayay yaalaan waana gef iyadoo maxkamadii sii daysay dacwaddu ka soo wareegtay xafiiskii u soo wareegtay CID-da markay soo wareegtay bay ahayd inuu kombiyuutaradayda iyo moobilada inamadayda shaqaaluhu ay soo wareegaan oo ay maadaan xafiiskii lagu soo wareejiyey dacwadayda ee baaritaanka galayay waxaanay ahayd markaan xorriyaddayda helay in qalabka xafiiskiisa yaalla xafiiskayga loo soo celiyo oo aan xuquuqdayda helo muddo 6 maalmooda xafiiskaygu wuxuu ku shaqaynayay bilaa kombiyuutar
shaqaalahaygu xafiiska ma imanaynin xafiiskana albaabada ayaa u xidhnaa taasoo ah dulmi kale oo lagu tacadiyey xuquuqdaydii shaqadaydii mas-uuliyaddaydii iyo xuquuqdii aan ku lahaa dalkayga waay intaasi waa taa sidii ay wax u dhaceen halkaasi ahayd aniga 7 maalmood baan ku xidhnaa xafiiska 4 maalmood kadib ayaa waxaa la geeyey xafiiska ayaa waxaa la iga qoray magacayga iyo magaca hooyadii iyo daadayda waxaa laga soo rumaan garaystay 4 maalmood kadib maxkamadda ciidamada militariga inaan rumaan ku xidhnaado anigoon lay arag oo aanan tegin oo ay xaq u leeyahay oo shuruucda dalku sheegayaan qofka rumaanka loo goynayo in garsooraha rumaanka u goynaya uu arko oo la horgeeyo qofka si uu u ogaado qofka rumaan garaynaya inuu dhintay iyo inuu nool yahay qofku yahayna uu garanayo wuxuu ka shaqeeyana uu garanayo dacwadiisana loo tilmaamo aniga oo aan taa marin ayaa xafiiskii laygu dhex rumaan garayay 7 maalmood markaan xidhnaa kadib waxaa la sameeyey inta gaari laygu qaaday oo lay dhex geeyey maxkamaddii militariga oo aan maxkamaddii militariga dhex tegey ayaa gaarigii layga dejin waayey gaarigii noohadaha ee laygu qaaday ayaa layga dejin waayey markii layga dejin waayey ayaa waraaqahaygii lala degayey magacaygii maxkamaddii anigoo dhex taagan dayrkeedii ayaa inta xafiiskii la galay laga soo rumaan garaystay in muddo aan waqti lahayn laygu hayo xabsiga dhexe Hargeysa garsooruhu rumaan garaynaya xabsiga dhexe geynaya inaan noolahay iyo inaan dhintay iyo inaan dhaawacahay midna ma arag markaan idhi xaq maxaan u leeyahay aan arko waa la ii diiday inaan arko garsooran tago waxa la yiri maxamedow mustawahaagii ma dad baa joogay maxkamadda fadhiye maxamedow kuma geenin garsooraha ma hortagaysi halkan baan ku dur rumaan garaynay marxaatigii leedahay maxaabiis kale ay socday oo iyagana lagu dur rumaan gareeyay meesha waa sharci jabin waana gab sharci oo khalad ah oo xuquuqdeydana aan ku waayay oo in maxkamad ciidan la geeyo aniga oo sifil ah oo journalist ah oo muwaadin ah oo dalkayga dadkayga u shaqeynaya inay taasina ahayd gab kale oo sharci oo la iga galay maxkamadda ciidanka markii la geyn doono dood baana dhex martay 3 saacadood habeenimidkii 7 barkii habeenimo ilaa iyo 12 habeenimo ay doodna dhex maraysay baarayaasha xafiiskaasi doodaydu waxay ahayd anigu xarig uma jiro sharcigayga in la xidho in la hadido in war la diido xaqda xuquuqdeeda uu sheegay xeerkayga saxaafaduna oo ilaahayna marxaati iga yahay oo ku celinaya oo ilaahay maalinta qiyaamaha marxaati iga yahay in uu 2 sano xukumayo isagoo meesha aan taaganay habeenkii 12 habeenimo inuu 2 sano xukumayo wuxuu ii raaciyay inaan iibsan doono oo iibsado maxkamadda ciidana way geynaya maxkamadda ciidana lama iibsado marxaati lahayd inaan kii fadhiyayna way lahayd ilaahayna waa isku kaayay maqlay inuu 2 sano xukumayo sharcigii baaritaan ayuu xaq u yeeshay inuu baaro oo aanu xaq u lahayn oo ciidanka dambi baarista inuu dhiibo wuxuu xaq u yeeshay inuu maxkamad ciidan geeyo oo aanu xaq u lahayn wuxuu xaq u yeeshay inuu sharcigii gacanta ku qaatay guuraa intaasaan ku xukumaya isaga go'aan ku gaadho oo maxkamadda ciidanka maxkamaddii xukumaysay oo inankii baarayay isaguna noqdo arrintaasina waa gab kale oo sharci oo aan ahayn maxamed ahaan maanta markan anigoo muwaadin oo qof kasta oo dawladda garanaya ay aniga intaasi igu dhacdo maxaad ka filaysaa qof kale oo muwaadin oo garab lahayn oo gaashaan lahayn oo aqoon lahayn oo qof mas'uul oo garanaya jirin oo cid ka daba hadlaysa jirin oo aanay dad allaala dad ka daba imanayaan jirin sidee culayska ay dareemayaan qofka muwaadinka ee walaalkaaya ee 9 bilood ku dhashay ee aad isku xuquuqda tihiin ee hooyii aabaydii wada dhaleen ee gurigeed ka soo toosto kale ka soo toosa ee duruuftaasi qabsato maxaa dareemaysaa xuquuq nooca dareemaysaa arrintaasi cadaalad marka laga hadlayo aan waxaan leeyahay cadaaladda ma marka maxkamadda la tagay mise qofku markuu nidaamka maray xafiiskaasi anigu aan soo maray ee sida sifada sharci darrada halka igaga qabsaday dibka ka taagan ilaahay u baaw wallahi inaan ku gafayn oo aanan inta ilag dulmiyay